السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan sameynayaa HTML keeni koobaad introduction ka marka HTML ka in your overview aan soo sameynay marka hadda waxaan sameynayaa folder si aan HTML ka marka aan u geliyo marka waxaan leeyahay web development aan leeyahay waa folder adu waxa doontaad ku qoranaysaa marka halkan waxaan ku qoray HTML marka HTML iyo CSS iyo JavaScript markasto oo sameynayso yani dot hadii file ka sameeyso HTML yahay waxa leedahay tusaale marka document waxaan leeyahay index.html baan dhahay si waxaan deeyno HTML yahay loo garto marka HTML ahaan ayuu hadda ayuu garanaya browser ku laakiin hadda text waxa dhahdo ma fahmay browser haddaan CSS sameynayo waxaan leeyahay style.css baan leeyahay sidoo kale si uu u fahmo haddaan JavaScript sameynayo file waxaan leeyahay CSS so يعني waxaan de inay tahay maxay ama JavaScript ama CSS inuu yahay uu fahmo marka waxaan example yaha waan ka baxaya marka halkan waxaan ku jiraa sadartaan web development folder kan hadda sameysana hadana HTML kadib waxaan furanayaa text editor sababta text editor ka idinka ka doontaan ay isticmaali kartaan kala aad ku fahansantahay marka kan hadii aad rabto Visual Studio Code installation kiisu ku jira waan sameeyay isagana waa daawan kartaa marka double click ayaan dhahayaa si uu ka furo marka halkan uu ka furaya kadib markuu uu ka furo aan dhaho ku hore ku jiraan iska close gareeyo folder ka close baan leeyahay si uu ka cusub igu noqdo halkan marka HTML folder ayaa inoogu jira folder ka HTML ka ayaa waxaan ku soo dhex tuurayaa text editor ka Visual Studio Code si aan yani code ugu dhex sameeyo marka halkan waad aragtaan HTML oo folder ka ayaa inoogu jira waxaan kala sameyn karaa halkan open dhaho aan yani open folder kadibna aan halka ka soo galo aan dhaho desktop HTML marka xaga ka soo galo web development HTML aan select dhaho adigana waad kartaa taas marka ani hadda waan ku soo dhex tuuray taas ana ka fudud sayla tahay iska saaro marka halkan waxaan sameynayaa yani file ka ayaan ku dhex sameynayaa marka file kan hadda sameynayna CSS ma JavaScript ma aha waa HTML waxa la index.html index.html baan idhi waan save gareeyay marka haddaan save dhaho on halkan imika text yar baan ku qortay wax yar oo CSS ad fatax yani YouTube name keena ayaan ku qoray kadib copy aan dhaho ku dhex tuuro aan ku soo dhex copy halkan waxaad aragtaan halkan imika CSS ad fatax baan uga wada buuxdo xagan haddii aan save dhaho halkan waxay noo soo gelayaa HTML keena wada aragtaan index ayay noo soo gelaya .html index ka inoo soo galay haddii aan imika intaan soo qabtaan ku dhex tuuro browser ka ساعد فهذا كروم أما واحد أنا أما إيش كودوني هذا دان تانتك فولدر كيني إن يروح وان اسكو يرد حدا داليات مودن هذا راه لهانسن عن إندكس كي أنتوا عن كسر دحتور إنهم دور CSS عد سو قلنا صوتها واتي هالكن إنه وجه شرتي إنه وجه شري هالكن أي سو قلنا maxaa sababta ma inaan sameeyay HTML iyo maxaa hay skeletalki ma inaan sameeyay sida maadaarta HTML oo kale waxyaalihi oo dhan ma inaan sameeyay sabab muxuu soo saaraya weyn su'aashu hadaba haddaan taa in ka yar jaaltiro halkan index.html aan u sameeyay ayaa wuxuu aqoonsanayaa waxaan lagu soo dhex tuuray browserka inuu marka hore yahay HTML marka sideedu ku soo gelinayaa marka waa taas imika haddaan dhaho labada halka u horeeya waxaan leeyahay Paul digad aan iri p marka intaan soo koobiyay x ku dhaxto Paul save de markaan refresh dhaw waa inay taas Paul bay noqonaysaa tan ku dhaka ku xiga italic iga dhig iyo chichivi sidii yani word oo kale marka word ka waxaynaysan oo kale way jiraan text ka inaad Paul ka dhigto italic ka dhigto tan dhakana italic ka dhig yani italic uu ka dhigaya marka uu yara chichifinaya wad aragtaa marka waxaan wuxuu sameeyay inagoo sameeynin inuu waxaan HTML uu yahay ayuu garanaya imika waxaan gelin karnaa haddaan dhaho halkan ka soo qaad paragraph haddaan dhaho wad aragtaa paragraph haddaan intaan soo koobiyo on paragraph ka geliyo paragraph ka dhex geliyo
paragraph ahaan ayuu la treat garoobaya marka يعني space buu dhaxanaya intan waa paragraph weeyaan sababta chrome marka joogto waxaad samayn kartaa extension inspect element marka halkan waxaad ka arki kartaa yani wixii paragraph halka paragraphka maxay noogu jira waxay noogu jira yani intan ayaa inoogu jirta waa paragraph weeyaan sidaa yani waa loo arki kartaa marka extensionka uu u garanayaa in waxaan uu yahay oo HTML laakiin qaab sax ama aha in qaabkan aad waxaad qoriso aad u geliso marka sidan uu kugu soo saaraya marka haddaan imika aan dhaho kan Cabdi Fataax haddaan dhaho CS Cabdi Fataax aan ka dhaho aan halkan waxaan sameeyo aan soo galo aan dhaho halkan aan dhaho heading to aan dhaho marka aan dhaho YouTube CS Cabdi Fataax aan dhaho markaan halkaas save ku dhaho haddii aan ku noqdo pagekeeni oo aan galo wuxuu sameynayaa marka inuu bedelo oo halkan ku qoro YouTube CS Cabdi Fataax yani kolba tag kolba elementiga aad siiso qaabkiisa ayuu soo dhigaya intan introduction oo kale ayaan siinay waxaan sameynaynaa wixii hadda ka dambeeyay inaan codekii caadi aan gelino oo kadib aan elementiska kala saarno intan introduction ay noo haato السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يدوم مع سنتين تاوشدينا.